walaalayaal waxaynu maanta aynu ka hadlaynaa xumaha oo soo daahira oo la qarsan waaya dhibaatada uu leeyahay xadiis nabigu sallallahu alayhi wasallam shan arrimood uu inoogu sheegay shan cuqubana ay ka dhalanayaan haddii shanta arrimood la yimaado intiibana aynu aragnay waxa uu ku tusinayaa inuu yahay caalam min a'laam an-nubuwah waxyaalaha aynu tusinaya nabiyullaahi maxamed nabinimadiisa iyo sidqigiisa iyo runtiisa nabigu sallallahu alayhi wasallam isagoo saxaabada la hadlaayay waxa uu yiri waliba muhaajiriintii la hadlaayay shan arrimood haddii la idinku imtixaamo ilaahay baan ka magan gelayaa inaa gaadhaani falaa khayra marka wax khayr oo adduunyada yaala ma jiro wax khayra oo adduunyada marka yaala ma jiro buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ilaahay baan ka magan gelayaa inaa gaadhaan laakiin xilliga khayr ma yaala buu nabigu sallallahu alayhi wasallam qodobka koobaad ka ugu horeysa nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri faahishadu lam tathal al-faahishatu fi qawmin faahishadu kuma soo daahirto oo soo ma baxo amba lama soo daahirsado lama muujisto xumaha duul ma muujistaan ilaa haddii ay muujistaan oo si cabaleeda ula yimaadaan oo la iska reebi waayo oo qofkii gidaarka fadhiya laba aska dhaafto isagoo gacanta haysta dumarka aad iska dhaafto iyada xabagta la cabaaya halka marka xumo runtii aad marka laba soo shaabaxo oo la reebi waayo taasi haday dhacdo wuu nabigu sallallahu alayhi wasallam laba arrimood bi ilaahay ummadda noocaas ku salidaa daa'un iyo xanuunaan hore loo arki jirin waa aidis waa macaan ma carruurtayda ku dhacaya ee dhashay waa xanuunaan la garanahaynin waa karoone xanuunaan ummadii hore ku dhici jirin iyo horta ilaahay ku salidaa iyo daa'uno labadaas alla subhanahu wa ta'ala ku salidaa labada cuqubo ayaa ka dhalanaya marka xumaha la soo baxo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu wala taqrabu azina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila warsinada ka fogaada iyo liwaadka iyo wixii la mid ah waa faahisho wada la marinayada ugu xumaatay ilaahay subhanahu wa ta'ala waanu arkaynaa maanta wadankeenu halku maraayo maanta waxa laga sheekeynayo waxaynu arkayno waa fawaahishtii oo la soo baxay waajibna ay inagu tahay inaynu ka kacno way cuquba haday dhacdo way caamiyeysaa kii wanaagsanaa iyo kii xumaaba ilaahay wuxuu leeyahay wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna allaha shadidul iqab waxa kale nabigu sallallahu alayhi wasallam marka uu tilmaamay oo leeyahay walam yanqusu al-mikyal wal mizan man nusqamiyan waxa la miisaayo iyo waxa la miisaamayo wasnigi waxa kala iibsanayeen man nusqamiyan hadii ay nusqamiyan ay taasi dhacdo uu nabigu sallallahu alayhi wasallam laba uqubu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku salidaya illa ukhudhu bisinin abar istaba joogta umada waa lagu salidaya waxa kale lagu salidaya shidatul mauna nolol adag ascaartii oo qaali garowda iyadoo waxba la iibsan kari waayo busaarad dhacda taas ilaahay subhanahu wa ta'ala taan labadaas ka dhalanaya labaduba umada way haystaan labaduba maanta wayna haystaan marka waxa loo baahan yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala waa uu ka digay wasniga in la dhaafo in la magaranaysa waxaad miisayso inaad khiyaamayso oo wax ka dhinto nabigu sallallahu alayhi wasallam madiina markuu yimi waxa uu yimi iyagoo dadka ugu liitaa xagga miiska oo dhimo oo nusqaamiya markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo dajiyay fawaylul lil mutaffifin alladina idha iktalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun waxa hooga ilaahay aqaabaya naaru diyaariyay kuwa markay dadka ka miisanayaan ee iyagu waxiibsanayaan oo wafaysta markay u miisayeen ay ka iibiyaan nusqaamiya markaas ay runtii ay ka tageen arrinkii markaas ay noqdeen dadka ugu fiican xagga miisaanka markaas
وقضية خطيرة رنتي مقرس الله ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ذلك وحودها كلمنا أرلدها فسهاد إن الله سبحانه وتعالى وليه وفسهاد مركا وحا كلمة كان الله يسا أبارتا رنتي الله سبحانه وتعالى وكسل له مضى إيا غلاء أسعارته وحبا اللي يبسن كروايو وذلك مركا باهي أقول انتهى المركز وحكى النبي صلى الله عليه وسلم وكتل الماموري ولم يمنعوا زكاة أموالهم حولها اسم الديدان سكدوا لو مبلكم وبخيلان ومبحي وايان سكدي كواجبتي أما من نسخاميان إلا هدي سكدي سيد الله بحي وايو وحاول النبي ومنع القطر من السماء سمد النبي على الله حراخ روب كان لتوتشيا إلهي سبحانه وتعالى روب كيس أيها يستاه ولولا البهائم لم يمطروا هدي آنوا ما يران كتيرين إيا معرورة إيار إيا أضياشة تذكى آن وحبك جيسن لما ورابيين بوري نبي صلى الله عليه وسلم أبارتنا وين أركنا رونتي أنت قارئ نقصنا نقنايسو أي كل بس صارنا نقنايسو أين هدنا وحبا أين كقادنا هينين تافراد النبي صلى الله عليه وسلم وحولي ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله مبريان إلهي يا الرسول كيس بلانتي إلا قرين بلانت وحكم ذا وحل يا لوحي واجباتك إن أدبدته وإذا خلى ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إلهي سبحانه وتعالى عهد يبلن بينك قال وحول لي بلنتها أي مبريان وات إلهي إنه لقى لي وات إنه لقى لي مخلوقة يا آدمها كلا قال يا مسلم بقى وات إنه فينا لقى لي مبريان بوري نبي صلى الله عليه وسلم هل لا هديتها سبعضه ويا خيانة قفك مسلم كما يقان وحويان صفاء رهين قفك مسلم كوا صفاء لو يقان ضدك قالها إنه خيانة أو خيانيان أو بلنتها أي كبحان أو قدر بلنبرنا سميان وعلامات كلو يقانه منافقة مركا حتى قال كبلنتك بحميسي سعد بدو شيء سادات كبحيسو وحولي هديتها سبعضه إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم عادوا كانوا إلى يكون صلى الله هنتدوا لي ببوبة وحي هيين بوكا قاطع ورمان تدك مسلمين تا مين عادوا أن إيجا هين لقوا صليدين مين يقولكوا لي بوبين مين خيرات كود أن يقولنا هينين مين هل كانن لبوبة هينين وأنا سكيب قولنا هينين وحبل لقوا الدين ماي وحل لي يلا وحل لقوا قولنا ما الرضايا وحل لي يلا وحل لقوا الدين يا مجنون وأمر كانوا كبحني إلهي سبحانه وتعالى بلنتيسي أيات هلا نقول صلي يا مركع وودن كين اللي بوبيا سنة ليا مين على كبر يا ذهب كين اللي قرانا يا مين هذا من يارة مينو هذا ما هو اللي جي فالمين هذا اللي قرانا يا جماعة تندوي كارلسين والله ذهب على قرانا يا يعني مين يشرين مال والبوي على مدين بالأرض بورها بالبرار قال تجا مال كستأو ذهب كشروا على مصرين قلبك شناد النبي صلى الله عليه وسلم والشاقي وحوليه وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله هدي أي كحكم ويدو ما دحلوا بكتاب كلا دي كحكم ويان ويسيدي سايوقادوا ويان أما كغاطان انت يقدر يوجرتين مسلحة دولا انت كلنا أي كتغان وأي سلاسة أي بعضه إلهي سبحانه وتعالى إذاك أيها سكين صلي واستليسان وحويان الله سبحانه وتعالى كتاب كيسي بلغتي والله وحتى لا عقوبة ربانية تي بين كجرة تي غير بني إسرائيل وكله إلا إلهي سبحانه وتعالى إنه قلنا وحما قرنا سا لا ينقى قادم أي عقوبة سيدنا بامي مينو ابن القيم رحمه الله تعالى أي وحا حل بقيسي وتلمام أيه وهي السبب واللي ما السبب وكذا بديه وكشر بديه وكذا بعت بديه وحوليه هاي أو تلمامية أرلدي ينوك بين الدلم أي لما ذو بعدين فساكت بري بنام بقى إنه كسر شعب حي تاساي كانت ظلمية إيه حماها الله سماينا إيه وحاول تلمامية بركات كي خيرات كيلو تجي أو أي رادين حوله وين النقدين
noloshii ay dhowqowday habeenkii ma garanaysaa uu la madoobaaday macaasida la samaynayo iyo maalinta labadaba marka uu wado soo gabagabeeyay runtii waxa uu leeyahay waa digniin daad cadaaba soo socda iyo digniin waxa isu yihiin buu leeyahay daad cadaaba oo soo socda oo daruurtiisa ay soo guntantay oo daruurtiisa ay isu tini wuxuu inoo sheegayaa buu yiri habeen masaa'ib wata iyo balaayo iyo cuqubo umada nooca noqota ee macaasida la soo shaabaxda inuu marka ay ku dhici doonto markaas waxa uu leeyahay wardo dariiqa ka fogaada intay toobada ay furantay ilaahay u toobad keena war waxaan u baahanahay ilaahay subhanahu wa ta'ala inaynu u noqono war fawaaxishta wadanka meel walba ku faaftay in la qabto war baabuurta la sii deynaayo ee la leeyahay dibadda la isla baxaayo ee istabtacid aan joojinahayn in la joojiyo boolisku inuu waajibkooda u guto oo qabto madaxweynaha ilaahay subhanahu wa ta'ala umada ay kaga cabsato oo xumahan faafay la qabto xid loo sameeyo marka ilaahay subhanahu wa ta'ala madaxda waxa uu ku qabtaa waxaan kitaabka aanu qabanaynin fulin bay leeyihiin iyaga joojin karo fasaadkan dhacaya iyo gidaarada la wada fadhiyo iyo baabuurta meelaha loola wada baxayo iyo fusqiga iyo fawaaxishta uma iyaga joojin karo runtii markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wasayalamu alladina dalaw ay munqalabin yanqalibun wala layal waxaynu u baahanay ilaahay subhanahu wa ta'ala inaynu toobad keeno waxaynu u baahanay sharciga ilaahay subhanahu wa ta'ala inaynu qaadano waxaynu u baahanay qawaaniinta baadilka ee wadanka lagu xukumayo in laga tuuro meesha waliba waa kii gabowday hindiya baybar koorka bari hore gaboway weeyaan in la tuuro oo sharciga ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu soo noqon waxaynu u baahanay inaynu ogaano wadanka inagu inaynu leenahay in ciidinagu haysan dhulku inuu dhulkeennii yahay oo aynu isku xukumi karno inuu kitaabkeena qaadan karno marka oo ilaahay subhanahu wa ta'ala mooyaane cid kale aynan ka cabsan rabbiga khalq qawaaniinta wadciga meesha taala la tuuro xukunka odayaasha iyo dhaqanka qabaa'ilka meesha laga saaro lagu bedelo kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala si aynu badbaadno adduunka iyo aakhira labadaba ilaahayna subhanahu wa ta'ala qoom bedelo ila ayagu isbedelaan oo ay toosaan oo ay hagaagaan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل